casrigan dambe dadku jiman iyo il iyo maxaa la yidhaahdaa sixir iyo wax jiman ku saabsan iyo shayaadiin bay tilmaamaan. ilaahay xuskiisa haddaad badiso culimmadu waxay leeyihin waa xaqiiqa xataa hadduu ku galo inuu kaa baxayo, laakiin dadkaan laazimin maalin iyo laba waxoogaa ka dhagdhagsiinaya deetana iska daynaya. kullamaa xuskaagu sii bataba shaydaanka ducfigiisaa badanaya, adkaysigiisaa yaraanaya. hadduu maarid kasta ahaa bay culammadu yidhaahdaan ilaahay dikrigiisaa kaxeeya. haddaad qur-aanka iyo salliga nebiga iyo laa ilaaha illa allah badsato kuwaasaa kaa kaxaynaya. innagu aw hebel u tag iyo aw hebel u tag baa madaxeenna ka buuxa, laakiin ilaahay ku xidhan way ku yeertayba. si awgeed nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka imaamu muslim soo saaray, qofku markuu gurigiisa soo galo hadduu ilaahay xuso marka uu guriga gelayo iyo marka uu cunada cunayaba, shaydaankaa wuxuu yidhaahdaa laa mabiita lakum walaa cashaa. halkan hoyaati iyo cunatoona ma taallo. haddaanu se qofku markuu guriga gelaya ilaahay xusin, shaydaanku wuxuu yidhaahdaa waa soo gaadhnay, waa soo haleelnay, deganaanshiyo hoyaatin iyo cunaba waa hellay buu yidhaahdaa. almabiit walcashaa labadaba waa hellay. maxaa inaad shaydaanka iska erida ku filan bismillah inaad tidhaahdo markaad gurigaaga gelayso, cunada markaad cunayso inaad bismillah tidhaahdo. bale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka saxiixa ee abu daawuud iyo nasaa-i iyo keyrkood ba wariyeen, qofku markuu gurigiisa ka baxayo hadduu yidhaahdo bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah, waa saddex erayoo kooban. bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah. waxaa loo yidhaahdaa qofkaasi oo la yidhaahdaa xasbuk qad kufiita wa hudiita wa wuqiita. waa xasbuk baa la yidhaahdaa, niyow ama gabadhiyay waa lagugu filaaday oo waa lagu hanuuniyey oo waa lagu ilaaliyey baa la yidhahdaa intaa haddaad la timaado. shaydaankuna markay kulmaan shaydaanka kale wuxuu ku yidhaahdaa kayfa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. sideed shaqo uga qaban kartaa nin lagu filaaday, xagga rabbi lagaga filaaday, oo la hanuuniyey oo la ilaaliyey. idan insurance ma rabta haddaad gurigaaga ka baxda balaayooyinka in alla ku dhaafiyo. intan dhan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo leeyahay ma jiro camal bini aadamku uu qabto looga rajo badan yahay inuu ilaahay cadaabkiisa kaa ilaaliyo dikrullaahi. maa camila aadamiyun camalan anjaa lahu min cadaab illaahi min dikri illah. qofka bini aadamkii ma sameeyo camalka ugu fiicane cadaabkaa dhowraa. adduunka haddii lagugu ilaaliyey, aakhirana waxa ugu fiicane lagugu ilaalinaya waa ilaahay xuskiisa. ayuha alaxiba, ilaahay xuskiisa aada badsataa waxaad kaga mashquulaysaa laqwiga iyo maxaa la yidhi iyo wax kale. bini aadamku markuu isu yimaado sheekuu bilaabaa iyo maxaa la yidhi iyo kan iyo maxaa la yidhi. macnaheedu waa maxay? waa dikru naas. dad baad xusaysaa, reer hebel baa duulay, qolo kale caynkan yeeshay, siyaasi hebel baa kan yidhi, heblaayaa waxaan samaysay. bini aadam baad xusaysaa halkaad ilaahay ka xusi lahayd. haddaad ilaahay xuskiisa badsato dadka xuskoodaad ilaabaysaa. waxaad kaga mashquulaysaa inaad dadkaba wax ka sheegto, laa mid madaxa walaa mid saaxiiba walaa mid ku dhow walaa mid aa col tihiin. wax sheegoodaba waxaad kaga maarmaysaa inaad ilaahay xusto. saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum cani illagwi mucriduun. sifaadka la isku xidhay waxaa ka mid a salaadda in lagu khushuuco ilaahay dikrigiisu uu dhadhanka u yeesho, iyo laqwiga inaad ka jeesanayso. saa awgeed baa ilahay wuxuuna leeyahy wakhti kasta dikriga ilaahay badiya, xataa markaad salaada ka baxdo. faidaa qadaytum manaasikakum baa ilaah yidhi, manaasigtiinna iyo cibaadaadkiinna markaad dhammaysataan waa xajkii, fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum washadda dikra. carabtii jaahiliyada waxaa caadi ahayd markay xajaane xajka dhammeeyaan ayaa qabaa'ilka iyo reerahu isu faani jireen. dabeetana qolo waliba waxay ka warrami jirtay reerkooda inta nin magaca leh ama waxaan ku jirta ama gabayadooda ama waxaas
cid waliba aabbayaashood bay tirin jirtay hadday carabtii jaahiliyadii saa samayn jirtay dee soomaaliduna way samaysaa cid waliba reerahooda reeraha iyaga kale ka adkaa iyo caynkan baanu ahaan jirnay reerkiina faankiisaad wadaa ilaahay wuxuu yidhi fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum sidaa reerihiina u sheegtaan ama si ka badan ilaahay u sheega baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa markii xajka laga baxay salaadda marka la dhammeeya ilaahay muxuu yidhi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم والصلاة مركا لما يسان بها إلهي سبحانه وتعالى حكس التقى لكن ها إلا بنا إلهي حسك سآب حصة أدو شقك لك بنية إلهي آب حص ضدك الصالحين تاوحا لك الشيخ الشيخ أبو حكور ربي هو يدي hooyaday marka ay raashinka karinayso waxay ku qiyaasan jirtay wardigeeda waxay tidhahdaa shaygaasi wuxuu ku bislaadaa kun subxaan allah kaasina wuxuu ku bislaadaa 2,000 oo laa ilaaha illa allah macnaheedu waa maxay halkaad imanka ka tidhaahdaan microwave-ka ku shid ama maxaa la yidhaahdaa ovenka shid 20 daqiiqaha ku jiro ayay iyadu wardi tirinaysay waxay leedahay markaad 2,000 goor laa ilaaha illa allah tidhaahdo shay ku bislaada idan waxay karinaysayba waxay garatay inay uga dhigto miqyaaska lagu qiyaasayo wardiga inta ay akhri karto waxay culimadu yidhaahdaan culimada badh baa waxay odhan jireen safarkiisa wuxuu ku qiyaasi jiray qur-aanka uu akhriyo meel heblaayo intaan 4 jis akhriyaa baan ku gaadhaa buu yidhaahdaa yacni waxa uu miqyaasa halkaynu inagu ka nidhaahno saacad baa lagu gaadhaa ama nus saaca lagu gaadhaa wuxuu leeyahay 4 jis baa kugu filan marka intaad sii socotaa 4 jis baad akhriyaysaa meeshii baad gaadhaysaa buu leeyahay dadka kani markaa waxa ka muuqda ilaahay dikrigiisu siduu qiimo ugu samaynayo ilaa ayay masaafaadka iyo zamanka iyo wax walba qiyaas uga dhigteen wardiga ay wardinayaan waa kuwa ilaahay markaa leeyahay haddaad salaad tukataan ama manaasigtiina dhammaysataan ama kan samaysaan ilaahay xuskiisa wada haddaad fadhidaan iyo haddaad sare joogtaan iyo haddaad maxay jiiftaanba sameeya أيها الأحبة عكس كذا إلهي وحط المامية قسوة القلب يا إلهي ذكر يسوس مال مقالة ذكر يا إلهي هذا قلبي أدق اسكدر أنتو وردي قبضصو إلهي حسكي سبضصو قلبي قبوش العيا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وإلهي سبحانه وتعالى سوى قد علماء واحد هذا ذكر الله تعالى دواء وذكر الناس داء بين هذا إلهي حسكي سنوى دو نفطي ينالش بالدوية آخرة بنا آدم كشيخ شيخي سنوى وحنون أيها الأحبة وحبضن بضن با إلهي حسكي سكحرا إلهي حسكي سوحو كان نعمضنا إن لهله نقمضة نبتنا إن لفيده إلهي حسكي ساكانا الأنس مع الله أيو كان إن الإلهي وهشته أيو كان إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسو سأو قد قف كستو إلهي ذكر جيسو بتصدى نرشع لندن يمعان السميسة وايو إساقا وحوال با واركا إنو يهي مفتاح كل شيء إنك مركا إنو حانو صنو وحي وقور هي مدحين قصور عوان اخترين إنو رادنا haddii dhibaato dhaqaale ku qabsato waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhaca waa asxaabta iyo qaraabadaadii iyo dadkii waxaystay ma hooyada baad la hadashaa ma adeerka baad la hadashaa ma aabbaha baad la maynaade mid waxaysto reerka ka mida inaad markiiba tidhaahdo mushkiladda dhaqaale hebel ula tag laakiin waxaa ka horeysa wax kastoo dhib oo ku qabsatay inaad xagga ilaahay la qabato xagga ilaahay inaad la qabataana waa inaad uun isaga aada u xustaa إلهي محولي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نبي الله نوح حكولي تلكي ور إلهي استغفارتي سأقولك علي وبتصد إلهي ومدن بقى هداد استغفارت بتصدان بولي عركا روب شوكتا الله ينكسينيا
waxaa kaloo ilaahay idinku deeqaya xoolo iyo caruur iyo waxa u baahantiinba ilaahay baa idin siinaya. xaggaad waxaa ka helaysaa sabab wuxuu uga dhigay in ilaahay uun istikfaartiisa la badsado oo loo toobad keeno. waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa, ubay ibnu kacab saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi ilaahay nabigiibuu ku leeyay ilaahay rasuulkiisiiyow salligaan adiga kugu salliyo waan tiro badayaaye imisaan ka dhiga. nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaa doonto ka dhigo. wuxuu yidhi rubuc ma ka dhiga? yacni ducadayda iyo waxaygoo dhan rubuc ka mid ah 4 meelood oo meel quarter adiga ma ka dhiga salligaaga? nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaa doonto ka dhigo, haddaad ka kordhisa intaana khayrunbaa kuu ziyaadaya. markaasuu yidhi haddaan nus baan ka dhigi. markaasuu nabigu ku yidhi intaad doonto ka dhigi, haddaad ka ziyaadiso nuskaana khayr baa kuu kordhi. markaasuu yidhi haddaad 3 meelood oo 2 meelood baan ka dhigi. markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ka ziyaadisana khayrunbaa kuu kordhi. markaasuu ku yidhi haddaad ducadayda oo dhanba salliga nebigaa ka dhigaya. markaasuu nebigu wuxuu ugu jawaabay idan tukfaa hammak wayukfar laka dambuk. warwarkaaga waa lagaaga fillaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, dembigaagana waa la dhaafi. salliga aynu nebiga ku salliyayno calayhi salaatu wasalaam oo aada badsataa wuxuu nebigu tilmaamayaa inuu keensanayo in warwarkaaga lagaaga fillaanayo, ilaahay kaaga fillaanayo. wuxuu kaloo keensanayaa baa layidhi in dembigaaga alla kuu dhaafo subxaanahu wa tacaala. oo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aad in badan ku sallinayso macnihiisi waxa weeyaan inaad ilaahay wuxuu ama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay qof hadduu wanaag idiin sameeyo u abaalguda, haddaad waxaad ugu abaalgudda weydaanna u duceeya baa layidhi oo ammaana. nebigu abaal buu inugu leeyahay tiro badan, dee diintan oo dhan buu ina soo gaadhsiiyey. si kale inugu abaalgudnaa ma jirto inaynuun ilaahay u barino mooyaane. ilaahay baryadiisa markaa innagaa wax ku raadinaynaa, innagay waxtar inoo tahay. waxtarka inoo tahay waxaa ka mida buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam markaasi in maxay aynu ku helayno shukrinaqaa aynu la nimi, inaynu ku helayno in hamigeenna alla subxaanahu wa tacaala tirtiro waxayna warwargelinayeen. haddii mashkalada ku qabsato halkaa fadhiiso inta tusbaxa qaadato salliga nebiga tiro badan kumaankum ku salli, warwarkaagaasi wuu kaa baaba'aya, dembigaagana waa la dhaafayaa baa layidhi. ilaahay qur-aanka wuxuu u tilmaamay ambiyo badanna inoogaga warramaya mashaakil qabsaday oo xal looga dhigay inay ilaahay dikrigiisa badsadaan. waa mashaakil adduunyo, ka aakhirana xal buu yahay. mashaakilka adduunyo xalka uu yahay maxaa ka mid ah? ilaahay xuskiisu. waxaa ka mid ah diiqu sadr, cidhiidhi. inta badan bini aadamka cidhiidhiga naftu goormu tilmaama. nin sheekha waxaa ka maqlayay mahmaah soomaaliyadoo tidhaahda buu yidhi dhengadu ama ushu way qabowdaa, ereyguse ma qabooba buu yidhi. yacni haddii imka u lagugu dhufto in yar kadibba xanuunkii uu kaa ba'aya, laakiin haddii lagu maago ama lagu caayo horo kaagama ba'ayo. muddaad naftu xoqanaysa, waxbaa lagaa sheegay iyo waa lagu maagay iyo cid baa wax ku tidhi iyo magacaagaa hoos loo dhigay iyo waa naftu wax iska celiya waxbay kugu akhriyaysaa tiro badan leh. marka xoqashadeedu hore uma qabowda bay soomaalidu tidhaahda. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay nebi maxamed waa la caayay, waa la maagay, waa sixroole la yidhi, waa isagoo xaq sheegaya. ilaahay markaa muxuu yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun. waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi laabtaadu inay cidhiidhtoomayso waxay kugula hadlayaan daraaddeed. haddii nebi maxamed baa cidhiidhi dareemayo dadka kalena maxaad u malay? waa un dadka qof markiiba jawaabta bixiye iyo qof isku daya inuu cadhadiisa qarsado oo ilaahay ajar kaga raadiyo. saa daraaddeed nebiyullaahi moxamed ilaahay wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ognahay laabtaadu inay cidhiidhiyoomayso waxa ay dadku kugula hadlayaan daraaddeed iyo cayd iyo maagga ay kugu wadaan. ilaahay muxuu dawo uga dhigay markaa? laab cidhiidhigan waxaa kaa biinaya 3 shay samee baa layidhi.
مدوا فسبح بحمد ربك إلهي وتصبيح صوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يوحي لمده بطصو وكن من الساجدين بالليل صلاة بطصو وإلهي سجودنا كم النقو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بالليل عبادة هذا كلنا بضي انت أد إلهي كلا كل مسو إذن إن التصبيح سطه وصلاتك وعباداتك بطسطها وحي دوك تهي عينيك قلبك كلا عينيك قلبك كلا يدوك تهي وحي دوك تهي dhibaatada kale muuqatee kugu dhacda ilaahay wuxuu inooga warramay nebi darnuun la yidhaahdo nabiyullaahi yuunus waxaa alla ka warramay nebi yuunus in baddu liqday doon laga tuuray baddu liqday haddana xuut baalkan maxaa la yidhaha nimiri uu sii liqay nimiri afkii uu galay intaas oo mugdi isagoo ku jira يا إلهي وحري سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حلقة سكن وقيبا إلهي سبحانه وتعالى يسقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي يوعد حق لغو عابدوك لما جرت أدق موياني أنا حمكهفا وكنت تصبح سنية أنا من الظالم بانا هيبقوا رواقا إلهي وحوق جوابا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكأقبل ليبا إلهي سبحانه وتعالى بريديسي يدعاديسي وأنا نبادنك مركب النبي يونس بيكو قابلت ما يا إلهي وحري وكذلك ننجي المؤمنين نبي يونس وحي غمي يورور هيستا يدبتي هيستا وبدا كجري وأنا نبادنك با إلهي دبنا الله صوتفي xeebtaa la keenay dabeetana geed baa ilaahay u beeray yaqtiin la yidhaahdo bocorka kanaad tidhaahdaan bocorku waa antibiotic bocorka iyo bakteeriyaadka iyo duqsiga iyo waxaas isku meel ma yimaadaan kaas baa loo beeray isagoo duubdhacsada kaa hadduu ismariyo khalaas waa bogsaday uma baahna wax kale ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waa ka aqbalo waa la badbaadiyey waayo falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaahay yidhi للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدي أنا كم دهين كوي تسبيح لبتسنجري إن بدن إلهي سبحانه وتعالى ومهدنا قتشري تسبيح سنجري عبادة سنجري تكنجري هدي أنا هو كم دهين بإلهي مشكلة ده وكتشري لها مشكلة ده محاكا ساري وحاكا ساري ورد جيسي ذكر جيسي مشكلة ده قبصتي مركا حل كده وحكم ده إلهي ذكر جيسي cabsida aad cid ka baqayso waxaa ka mid a xalkeeda ilaahay dikrigiisa oo ninkii dunida aan odhan karno wuu u kibir badnaa oo boqortooyo laga baqa buu ahaa oo dadka laynaya oo dhib oo dhan geysanaya qur-aanku ka warramay ee taariikhda bini aadamka fircawn buu ahaa ilaahay fircawn buu ka warramay wuxuu dhib dadka ku hayay nebi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa loo diray nebi muuse wuxuu tilmaamay inuu ka cabsi qabo ninkan inuu dhib u geysto xalka la siiyey markaa muxuu ahaa ilaahay wuxuu ku yidhi idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniya fii dikrii baa ilaahay yidhi adiga iyo walaalkaa taga oo rasuul baa tiinay nebigaa u taga idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaahay yidhi fircoon waa kibray weliba waa xadgudbaya u taga fircoonkaa laga baqayo ayaa la yidhi waajah maxaa u ah markaa uu isku ilaalinaya ilaahay wuxuu yidhi walaa taniya fii dikri aniga xuskayguun ha ka noogin ha ka daalin fircoon waxba kuguma samayn karayo haddaad maxay inanii asmac wa araa baa ilaahay u tilmaamay anaa dunida maamulo baa ilaahay leeyahay aniguuni qabso oo xuska badi wakti aan fogeyn baa nin sheekh iiu warramay saddex nin iyagoo abaa gardarro lagu qabtay dabeetana xabsiyada adag xabsi ka mida lagu xidhay wuxuu yidhi qur-aan baanu akhrinay tiro badan markaa nin ka mida nimankii baa wuxuu yidhi waryaani qur-aanka haddaan akhrino waan bixi karaynaa jeelkaasi may raacaysaa waan yaro shakiyey buu yidhi waxaan nidhi adigu bal tijaabi qur-aan badan intuu akhriyun buu iska baxay buu yidhi albaabkaa laga furay
kii labaad baa yidhi buu yidhi waar isba ku baxyeennana waa akhriyayna qur-aan badan oo kale aanu akhrinay buu yidhi dabeetana kii labaadna uu iska tegey buu yidhi uu iska baxay ninka ii warramaya waa ka saddexaad marka anigu waan yaro shakeeyayaa buu yidhi kolba waxaa isleeyahay war nimankii meeshan adag kugu xidhay hadday ku qabtaan waa ku garaacayaan haddane waasna markii dambaan sidhi buu yidhi war labadii kaa horreeyeyba ku baxee maadadna tijaabisi waa waday buu yidhi wado ana albaabkan ka soo boday buu iska soo baxay oo adigu saad u baxdaan weydiiyey kuwa kale maad arkaynin albaabka markaan mirayaa mid igu yidhi buu yidhi miyaad sala tagaysaa markaasaan ku yidhi buu yidhi haa dabeetana uu ii baneeyey buu yidhi oo iska dhaafa ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa haddaad badsato nabadgelye iyada kugu filan laakiin inta badan dadku way hilmaamaan sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa dagaalada gelaya mujaahidiinta ah war dagaalamoo sugma baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay xuskiisa badsada ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacallakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo haddaad la kulantaan fi'a koox haddaa ishaleeshaan horta ha cararinee sugma baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaala haddaad la kulantaan oo dagaal ay tahay sugmo ha cararina maxay kala sameeya baa ilaahay yidhi fadkuruu llaha kaiiran lacallakum tuflixuun ilaahay xuskiisana badsada waxay mudan tihiin inaad guulaysataan baa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay xuskiisa deganaashiya naxariis baa lagu helaa siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya ilaa iyo malaa'igtaa isku weegaarta oo ilaahay naxariistiisaa daboosha oo xasillooni baa ilaahay ku soo dejiya oo rabbi baa kuwa agtiisa joogee malaa'igtaa uga warrama waxaas oo nicmo ah maxaa lagu helaya marka xuska ilaahay dhab inaga yihi aynu si dhaba ilaahay u xusayno subxaana wa tacaala cagsigeeda wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul meel ma fadhiistaan iyagoona ilaahay xusaynin ilaa iyo nuqsaan bay ku noqotaa ilaa kaana calayhim tiradu waa naqs walan yatirakum acmaalakum yani waa nuqsaan bay ku noqotaa qof ma jira buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rajulun mashaa طariiqan qof waddo maray waan ilaahay xusin ilaa kaana calayhi tira وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة نبي وحط المامي عليه الصلاة والسلام قف فريستي يقف سعطاه يقف جيف سنية وأنا إلهي حسيني هدوش ربون نقصان ما يكون طهيب النبي عليه الصلاة والسلام أجر كاكا نقصامي إلى لنتي حريستي وحي لهلا يبقى نقصامي وحي وناقا نصوصته يتلمامتي وربك نقصامي sidaa ogeed maalinta qiyaamo baa la yidhi meel jalsa dadkii soo fadhiistay aan nebigana ku sallin ilaahayna xusinin ilaa kaana calayhim tira fain shaaa cadabahum wain shaaa gafara lahum maa min qowmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna fiih ilaa qaamuu can mithli jiifati ximaar wa kaana calayhim xasra dul meel inta isugu yimaadaan war kale un akhriyaan iyagoo aanay ilaahayba sheegin ilaa iyo sidii bakti dameer duulka dulkacay bay noqdaan baa la tilmaamay can mithli jiifati ximaar ayuha alaxiba saacad kastoo dunida ina soo marto aynaan ilaahay xusini khasaaraha akhira inuu tayo mida dunyaba cala alaqal wuxuu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii majliska aynu fadhino waxoogaa laqwiyiba inaga dhacdhacaan marka u dambaysa aynu kacayno haddaynu nidhaahno subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk ilaahay wixii majliskaa dembi inaga dhacay waa inoo dhaafaya calal aqal markaynu sii kacaynuun haddaynu ilaahay xusno wixii aynu qasnay ee dhiba inaga dhacay waa laynaga dhaafaya ayaa laxiba markaa ilaahay xuskiisa adduunkana waa lagu liibaanaa aakhirana waa lagu liibaana 300 aayadood wax ku dhadhowba quraana ku soo arooray axaadiis aan ka tira yaraynaba ku dhadhowba soo aroortay jalse kuma dhammayn karno faa'iidooyinka ku soo arooray ama axaadiista ama aayadka quraana ku soo arooray
jalse kuma dhammayn karno haddaynu ka tagno dhibaha lala kulmo. laakiin ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala, war xataa haddaad cid uun la saaxiibayso ama raacayso kuwa ilaahay xusan raaca. walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina baa ilaah yidhi. ha adeecin oo saaxiib ha ka dhiganin oo ha la soconin oo warkiisa ha qaadan kuwa qalbigoodu ilaahay xuskiisa haafilka u ka yihi ee naftoodu waxay doonta iska raacay. marka ayaa lagu leeyahay raac kuwa ilaahay xuskiisa ah, waayo laa yashqaa bihim jaliisuhum buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa kii xadiidka dheer nebigu ku tilmaamayay malaa'ig socotaa jirta oo daydayaysa bal majlis ilaahay lagu xusayo meelaha ilaahay lagu xuso timaada. waxaanuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xataa ka iska yimi aan isagu ku jirin dadkan ilaahay xusayo wanaagga dhegaysanayay markay kaakacaan ilaahay wuxuu dhahay dhammaantood waa u dembi dhaafan. markaasaa malaa'igtu tidhaahdaa mid baa ku jira aan isagu xuskaba ku jirina meeshuu yimi. qowmun laa yashqaa bihim jaliisuhum baa la ydhaha. waa duul cidda la fadhiisataana aanay khasaarin. dadka ilaahay xuso haddaad ka agdhowaato, masaajidda ka agdhowaato, meelaha diinta lagu dhigaya ka agdhowaato, meelaha ilaahay lagu xusaya ka agdhowaatid, ilaahay wuxuu tilmaamayaa saa xadiidkaa nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam, qowmun laa yashqaa bihim jaliisuhum min anqorsi. duul cidda la fadhiisata, saalixa cidda la fadhiisata laguma khasaaro. ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira وصبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. أحبتي في الله، warkoobana wuxuu yahay ilaahay xusiisa inuu nolosheenna iyo ka mid noqdo. ilaahay xuskiisa waa taqaanin erayada markay tahay alfaadda carabka laga yidhaahdo qalbigana laga xasuusto macnaheeda in badanoo ka mida waa taqaanin. subxaana allah, alxamdu lilah, allahu akbar, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, laa xawla walaa quwata ila billah. qur-aankoo la akhriyo iyo wixii la mida waxyaabaha ilaahay lagu xuso waa taqaanin. waxaa kaloo ilaahay lagu xusaa inaad dadka u sheegtid, ilaahay bartid oo xustid si ay ilaahay u xusaan. inaad diin dad bartid, dacwadad ugu yeedhid, waa ilaahay baa dadka baraysaa, u xusaysaa, ilaahay baa dadka jeclaysiinaysa. almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati اddunya wاlbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala. ilaahay wuxuu leeyahay xoolaha iyo caruurta iyo waxani waa nolosha adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo qurxinteeda, laakiin waxaa hadhaya ee saalixa ah albaaqiyaat saalixaat mufasiriintu waxay ku sheegeen erayadan aynu sheegnay inay yihiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah iyo wixii la mida inay yihiin. kuwaasaa ilaah agtiisa khayr badan oo wakhayrun amala. ayuha alaxiba, waxaan ku soo koobaynaa ilaahay xuskiisa yaynan kaga mashquulin adduunkan yar ee faaniga ee dhammaanaya. istikfaarta aan badsanno, baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan badsanno, wardiga aan badsanno, nolosheennoo dhan inaynu ilaahay ku xusno. markaad xalaasha raadinayso ilaahay awaamirtiisaad xusaysa, markaad xaaraanta ka dheeraanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala nawaahidiisaad xusaysa, markaad salaadaha iyo cibaadaadka iyo waxa kala samaynayso ilaahay baad xusaysa. makhluuqaadka ilaahay markaad ka fakaraysa iyo sancada alle iyo siduu wax u abuuray iyo weynidiisa kuu muuqanayso ilaahay baad xusaysaa subxaanahu wa tacaala. noloshoo dhan waa inay inoo noqotaa ilaahay xuskiisa inaynu baranno. darsigaygu markaa wuxuu ku kooban yahay ilaahay agteenna ha ku weynaado. iminka waxaa laga yaabaa dadka agtiisa inay ku weyn tahay sida xoolo loo helo, dadkuna inay u arkaan qofka xoolo badan soo helay qof guulaystay, adduun buu soo ururiyey. dadku inay u arkaan qof guulaystay qofka siyaasiga noqda ama power helay ama wealth helay ama wax la mida helay. war waxaas waa imtixaanaad kororhsatay wey.
آخر بس سؤالها اسكو بديسة سؤالها اللي ويدين يا آخره أي ما تسيتي ربضيسة مركز حوالات بدن iyo power iyo internet kuwa hadda iska daysana su'aalaha iska yaraysayo aakhir waxa lagu weydiinayo ayuu baad yaraysa xisaabtaadu baad fududeys laakiin adduunka aakhiraba waxa wax ku taraya inuu ilaahay agteena ku weynaado qalbigeena ku weynaado nolosheena ku weynaado gurigeena ku weynaado tijaaradeenna ku weynaado wax kasto aynu qabanayno inuu ilaahay ka dhaxaragno markaas aynu noqonaynaa addoomihii dhabta ahaa ilaahay raalli ahaanshiyihiisu inuu wax kasta inagala weynaado ilaahay inuu ina sheego aynu agtiisa magac iyo maamuus ku yeelana inay makhluuqaadka inalaga weynaato dadku waxyaabo badan waxa laga yaabaa inuu ka xishoodo waayo dadkaa ku arkaya ka waran hadduu ilaahay ku arkayo haybatul khalq mise haybatullahi subxaanahu wa tacaala keeba kula weyn inaad ilaahay agtiisa ka ceebowdo iyo bini aadam agtii inaad ku ceebowdo إذا نولش شردمي مركا إلهي كو مغضى ويفضان سواء يرانس أدون كودا المعنى بدن كولا يلان مايو مركا دي إلهي قرات سادر أدين بكو إلهي سيدنا بوقرت صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفتو دي سيسانية وهو يودى قال من هو لمنية مال كودا سيسانية وهو بحنية أبو بكر بالله أمانية أبو بكر بحلوة أمانية وحلوة أمانية إلهي بوحول بكالوينا nintaa jiro xoolo laba goor buu xoolihiisa oo dhan ka baxay wuxuu haysto dhan intuu bixiyey ayuu dib zero uga bilaabay haddana wuxuu haysto dhan buu marka la bixiyo dib zero uga bilaabay macnaheedu waa maxay adduunkan uu ururinayo waxa kala weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu raalli geliyo oo ilaahay agtiisa dhigtaaba uga weyn inuu adduunkan yidhaahdo daaro badan baa dhisay ama ka badan baa dhisay idan hadduu ilaahay inugu weyn yahayna waxa kaloo dhan way yaraanayaan marka waxa kaloo dhan مخلوقات بين قنيان هدي إلهينا لا يرادنا أما إنه إلونه أما قلبي أنا كبحنا أدونك إيا بن آدم كي خلقك أنا لو وينانا إياه نولش شعور نبع عديدي قليسة مركا إلهي حسكي سبت صدى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله